maantay waa labadii bisha December 2013 waxaan ahay Prime Ministerka xukuumadda Soomaaliya oo halkii sano u dambeysay soo shaqeynayay diyaarna waxaanu ahay intii alla ii qadaro inaan dalkayga iyo dadkayga u sii shaqeeyo maanta waxaan u qabtay kulankan gaarka ah inaan la wadaago ummadayda iyo caalamkaba arrimo la soo dartay dawladnimada Soomaaliya oo mararka qaarkood ay habboon tahay inaan hoos lagu haynin si fiican dadka loola qaybsado si caafimaad leh oo dibaynin dawladnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyana aan ka nixinin sidaas waa sida aan maanta ku talagalay ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa akhbaartan si degan oo maangala inaan u kala dhageysano waxa isugu jirtaa taariikh kooban iyo khudbad dheer oo nagu talagalay in ummadaydu ay dhagahooda ku dhageystaan waa mahadsantihiin labo ilaa 3 wiil oo la soo dhaafay waxaa jiray ismaandhaaf yar oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha mar rabo inaan aad uga faalloodo laakiin waxaan ku tilmaamay saldigiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacana taariikhdii Soomaaliya dhinac kala ah oo 10 sano oo la xiriirta iscasil iyo iscasil maayo arrintaasi arrin fudud ma aha laakiin 10 sano u dambeeyay taariikhda dawladnimada Soomaaliya way ka dhex muuqatay arrintaas ayada ahi waxa weeye maantay anay mudatay inaan wax mudan ka iraahdo hal macquulana u helo sidii danta caamka ah iyo danta dawladnimadu ay ku jirto arrintaas ayada ah markay ila soo gudboonaatay waxa igu dhacay isla markiiba madaxayga ku soo dhacay waxyaabo badan oo si degdeg ah inaan u gocdo oo jawaab ugu helo ay xasab noqoto waxa igu soo dhacay taariikhdii warkan asaga ah oo iscasili mahayo iyo dhibka uu dawladnimada Soomaaliya ku soo qabtay 12 sano oo ina dhaafay waxaan xusuustay laga bilaabo Prime Minister Ali Galay ilaa iyo Prime Minister Abdiwali iyo intii u dhaxaysay oo dhan mid uma tirinayo laakiin dhammaan waxay ahayd hal mushkilad oo soo jiitamaysa oo runtii si xal loogu helaa ay adkaatay markastana dawladnimadeena iyo rajada ummadeena wax u dhimaysay waa igu soo dhacday arrintani inaysan ahayn arrin iska timid laakiin waxyaabihii dawladnimadeena gaafirayay oo taariikhda noogu jiray qayb kamida inay tahay taas waa igu soo dhacday waxa kale oo igu soo dhacday isla markiiba rajada badan iyo hanka badan oo dawladnimadeena maantay ay mudan tahay in loo qabo dadkuna oo u qabo caalamkuna ka sugayo isla intaas marka kadib waxa igu soo dhacay in golaha baarlamaanka oo la igeeyay bishii November 2012 uu igu ansixiyay kalsoonina igu siiyay 219 cod ayadoo ay fadhido 225 xildhibaan 6 maqan 3 baa aamustay 3na maya bay yiraahdeen aad bay culays igu noqotay 219 xildhibaan amaanadii ay saareen waxa kale oo igu soo dhacday sheeko Soomaali marar badan aad dhaqankeena looga yaqaan oo marka qofka ay la soo gudboonaato aqin inuu ka jawaabo ay noqoto an aad dhaqanka uga dhex arko oo la adwada xusuusan karta oo ahay haddii mushkiladu kugu timaado su'aal adagu kugu timaado ma waxaad uga jawaabaysaa si adiga ku roon mase si taariikhda iyo dawladnimada u roon si kale marka loo dhaho dhaqanku wuxuu oran jiray ma waxaan uga jawaabnaa si annaga noo roon mase si ilmaheena dambe u roon anu waxaan u dhigay ma si aniga ii roon mase dawladnimada iyo mustaqbalka Soomaaliya u roon umurahaas oo dhan waa igu soo dhaceen jawaab degan yaan dib u ceshay anoo ana waxba runtii aysan igu dhicin kale waxaan iri arrintani ma waafaqsana dastuurka iyo nidaamka dawliga fadlan aynu waafajino sida caadiga ah
runtii arrintaas ayada ah ma aanan diyaar u ahayn inaan wax xun ama wax dhiba marnaba aan aniga iyo madaxweynaha iyaga ay madax maraan madaxweynaha iyaga aan sharaf badan u hayo runtii laakiinse waa ka badin waaye markaan intaasoo dhan soo eegay waxaan arkay inay habboon tahay in arrintan xal loogu helo si waafaqsan constitution si waafaqsan dowladnimada inaan lagu xalilinin suuq madow iyada oo aysan runtii intaasoo taariikha ay lahayd waxa weeye waa in la mariyo wadada aan is oran karno sidaan baa dowladnimada iyo dastuurka dan u ah sidii baan anoo aad u degan u sheegay madaxweynaha inay habboon tahay arrintan inaan haa iska idhaahdo dowlad iyo dastuur baynu leenahay ma nihin ciidan dhulka ku qabsaday xoog waxaanu ku qabsannay dadka ogolaanshiyo iyo dastuur baanu madax ku noqonnay inaanu si degan aynu u aqbalno inaanu marino dastuurka iyo marinka dawliga ah way ka soo gudubtay intaas markay noqotay arrin aad baladka loogu ogyahay laakiin anigu aan ku faraxsanahay inaanan si degdega u shaacinin waxaan soo saaray press release aan oranahayo arrintan waa arrin constitutional crisis salkeedu yahay ee ma aha arrin siyaasadeed waa in lagu xalilo qaab waafaqsan institutionska Soomaaliya si waafaqsan gacanta Soomaaliyana waa inay xal loogu helaan marka aan saaleeyahay waxaan diiday oo ka hortaagay dhaqankii ahaa in dibadda laga yimaado dhexdhexaadin la galo ama inta la yiraahdo soo baxa banaanka aad ku maqashaan madaxweynihii iyo prime ministerkii baa wax Soomaaliya la xiriira dhexdooda lagu dhaxay aad bay iidan qaysay mana waana dhaqanada inay bedelmaan ay dhab tahay ana ku talagalay inay bedelmaan statementigii si kooban wuxuu ahaa arrintani waxay salka ku haysaa constitutional crisis faragelin dibaddana uma baahneen waa in institutionska Soomaaliya gudaheeda lagu xalilaa go'aankaas inaan qaato waa ku faraxsanaa waxayna iga ahayd wax tar u ah dawladnimada iyo inaan baranno khilaafkeena inaan la aadno si dastuuri ah inaan inta uga fakaro xal gudaha araadsano marka aan saalaha waa huba inaan contribute gareeyay inay wax noo taraaqwa inaan kobciyo oo baranno sida khilaafaadka iyo ismaandaabka iyo wixii la isku qabto aynu u niraahno maya waxaan ka leenahay constitution runtii arrintaas waafaqsan bay ahayd nasiib wanaag arrintaa waa ku guulaystay wayna noo hirgashay inaysan naga noqonin mid dibadda laga soo farageliyo arrintii ka bilaabatay khilaafka noocaasa oo asalkiisa constitutionalka u arkahayay muddo gaaban gudaheed waxay isu bedeshay mooshin baarlamaanka taga lama yaabin laakiin mana filayn mana ku faraxsanayn sababtoo ah dariiq bay lahayd qaab bay lahayd mooshin baarlamaan oo xukuumadda si gaar ah wax looga tabanayo oo la leeyahay shaqadeedii waa ka soo bixi weeyay ajandaha aan ka wada hadlaynay mid gaar ah buu ahaa maahe mid halkaas gaarsiisa runtii ma ahayn ayada laftigeeda kama nixin maxaa yeelay waxaan diyaar u ahaa horeyna ugu soo noqday maanta meesha Soomaaliya marayso waxyaabo badan in lagu talagalo in la barto xal uguba oo waara oo dulqaad leh in loo helo tiibaan u arkay tiibaan la tacaalay isla markii aan arkay in la diyaariyay mooshin oo arrintii dhanka baarlamaanka ay u wareegtay waxaan sameeyay isla markiiba warqadan ayaan u qoray gudoomiyaha baarlamaanka oo leeyahay waxba kama qabo in arrintii ay isu bedeshay mooshin laakiin hal la siiyo xukuumadda fursad ay isku difaacdo oo bal arrinta moshinku ku xusan inay tahay arrintan sida aynu u aragno bal hanala ka dhageyso kadib say ugu fududaato xildhibaanada inay ayagoo macluumaad haysta codkooda iyo waxay la noqoto ay ka dhiibaan waa mahadsan yahay gudoomiyaha baarlamaanku si aad u dhow u soo dhaweeyay xaqna waad u leedahay waana ku siinahayaa kala dooro maalinkay arrintu bilaabanayso oo mooshinka la akhriyayo iyo maalinka doodu dhamaato kee mid soo dooro aad baan uga mahadnaqay halkaasay arrintu ku dhamaatay
isla markiiba waxaan aleerti gareeyay 10 wasaaradood oo xukuumadaydu ay ka kooban tahay wasiiradoodii waxaan u sheegay warqadan baan u qoray wasaarad walba ha soo diyaariso waxqabadkeedii si loo arko ummadda iyo baarlamaankana aanu la qaybsano bal halkii sano waxa la sheegay dabcan anuguna waxaan ahaa hoggaanka xukuumadda waxaan soo diyaarsaday khudbad halkan ku jirta oo dheer oo ka horeynaysa intaan wasiirada sida gaarka loogu baahdo hortood inaan hadlo khasaba halkan waxaa ku jirta khudbadaydii dabcan 10 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadayda mid walba waxay la soo diyaar garoobay waxqabadkeedii si aanu baarlamaanka iyo ummadaba ula qaybsano halkii sano wixii aynu qabanay ayaguna go'aanka ku habboon ay gaaraan ilaa iyo intaas arrintu way soo socotay kadib waxaa bilowday maalinkii shalay ahaa waxaan u tagay gudoomiyaha baarlamaanka anoo ka codsan tixraacahay codsigaygii waxaan idhi intaan la furin dooda golaha waxaan rabaa khudbadaydan inaan akhriyo waayahay wuu yidhi isug ii diyaar garow 10 ilaa 11 inta u dhaxaysa waan u diyaar garoobay waxaan diyaarsaday oo soo dhaweystay khudbadaydan golahaygii sharafta badnaana waa wargeliyey si ay u soo diyaar garoobaan wixii ay qabteen jawaab ayaan weynay kadibna waxaanu na soo gaartay goluhu ma tegi doontaan waa la akhrin doonaa eedayntiina go'aanna waa laga gaari doonaa arrintaasi waxay noqotay wax la yaabo sidee ku dhici kadhaa anoo ah prime ministerkii dalka anoo xukuumaddaydii mooshin laga keenay anoo muwaadin ahaan xataa xaq u leh haddii lay eedeeyo inaan go'aan layga gaarin in aan hadlo maahe sidee ku dhici kadhaa xukuumadda dhan ee Soomaaliya oo constitutionalka oo maanta taagan inta mooshin laga keeno in la siin waayo fursadda ah inay isdifaacdo waxaan la yaabay yaana eedaynahaya yaasa dhankayga ka hadlahaya arrintaas xal waa u waayey laakiin wax la yaab lahay noqoto ummaduna waa la socotaa ilaa iyo haddana jawaab uma helin mar labaad baan fakiray sidii tii hore aan u aqbalay oon iri yaana la faragelini ha loo daayo umuuraha gudaha ma hadlin mar kale annaga international community saameyn weyn bay nagu leedahay hawlo badan bay nagu nala qabtaan wax badan bay nala kaalmeeyaan dawladdeena aad bay u gacan qabtaan oo u garab taagan yihiin waxyaabo badanna waa nala og yihiin laakiin runtii ma aleerti garayn sababtoo ah mar kale mabda ahaan waxay iga tahay mushkilada Soomaaliya hal la barto gacanta Soomaaliya in lagu xalliyo maanta waxay maraysaa ayada oo mooshin xukuumadda ka dhan ah oo ah midka halkan ku xusan oo ka kooban 5 qodob oo aanan hadda halkan kaga faaloonin laakiin jawaabahoodii halkan ka hayo maalinkii labaad lagu dhageysanayo baarlamaanka anoo ah prime minister dalkana aan la ii ogolayn inaan ama dhageysto ama isdifaaco arrintaani waa arrin aad u xanuun badan laakiin maxaa gudboon su'aalahan iyo kuwa kaloo badan waa ila soo gudboonaan doonaan waxayse u baahan tahay maanta oo kale halkan markay marayso sidee xal loogu helaa xalku waxa weeye laba arrimood waxa weeyaan marnaba ma eedaynayno baarlamaankeena waxa weeye baarlamaankeenu waa dadaalayaan waxa weeye waa inuu xal helo waa ku dadaalaya laakiin waxa jira wax aan fahmi karin oo uu ka adag yahay waana garan karaa in mooshin iyo difaac ay isla socdaan laakiin se mooshin iyo difaac in la kala reebo waa wax ugub awey maxaa ku khasbay kolba uga darimayno baarlamaanka laakiin se mana annaan garowsan insaas wax u dhacaan sidaa in wax u dhacaanna runtii aad baanu uga xunnahay markasta wax badan baanu institutionskeena ugu dulqaadanaynaa sababo badan awgood laakiin midaan xoogaa waa ka babadis waxaad moodaa inay adag tahay laakiin marnaba principalkii ahaa Soomaaliya yaan looga darin
Soomaaliya umuuraheeda gacmashi sheeyaan lagu faragelin marnaba ma yeelayno oo kuma fakarayo aniga iyo xukuumadayda laakiin way xanuun badan tahay meelahaas oo kale inaan horay uga soo gudubnay ahayd si kastaba ku dhacday halkaas ayay maanta maraysaa su'aalo badan baa xalay ilaa shalay markii la yiri ma tagaysid adoo prime minister ki wadanka baarlamaanka yaa la soo weydiinay waxa la kamid ah su'aalihii adkaayo la soo weydiinayay maxaa la qarinaya oo aad inaad baarlamaanka ka sheegto la diidaya waxa kamid ah su'aalihii kale oo la soo weydiiyay baarlamaanku adoo maqan oo xukuumadeedii ay wada maqantoo aysan isdaafinin haddii ay go'aan soo saarto ma aqbali doontaa labada arrimoodba anoo kaga jawaabaya mabda'i ahaa horeyna iima soo marin wax Soomaaliya u turid ama wax u dhimahayana ma samaynayo labadaba waxaan rabaa inaan ummadayda horteeda uga jawaabo midda hore maxaa la qarinayaa ahay oo maxaa lagu diidayaa waxa aad ogtahay oo la diidayo inaad ummadda iyo baarlamaanka la qaysato ama hayka waa ka jawaabaya ko waa dhab inaan wax badan ogahay sababtoo ah hal sano baan fadhiyay xafiiskayga oo prime minister ki dhabta ahaa oo Soomaaliya ahaa xog badan inaan hayo la iskuma hayo laakiin waxaan cadeynayaa weligiina ma yeelin mana yeeli doono xog Soomaaliya wax u dhimaysa inay wax u tagta maahe inaan ama meel public ah ka sheego ama dagaal iyo sidaani waa khalad ku sax inaan taho maya sida la aligeed waa hubaal khudbadaydan halkan ku taaloon baarlamaanka ugu talagalay haba yaraatee wax Soomaaliya dib u ah ama dib u celinayay institutionska maanta soo kacaya kuma jirto mana u ogoli taariikhdayda inay gasho saacid maalinkaas Soomaaliya xaqraday horeyna uguma jirin haddana ma geli doonto sida la aligeed kaas waa in laga walwalaada wax khatar ah waan la dhageysan doontaano waa idin wada akhrin doonaa laakiin mabaadi'da aan ku shaqeeyo dhan baa waxay ahayd lagama yaabo wax kastoo ogahay wax jibu dhac ama shock gelinaya geedi socodka Soomaaliya ee dawladda in afkayga ay ka soo baxdo waan uga turahayaa waan jeclahay dalka iyo dadka waan u soo shaqeeyay mana rabo taariikhdayda inay in yar ay taabato waa ka gudbayaa su'aasha labaad oo ah adoo maqan haddii baarlamaanku xukmi gaaro oo yiraahdo sidaas baanu ka garanay ayadoo aan la isdaaficinin oo qodobadii lagu soo eedeeyay aan laga difaacin maxaad yeeli doontaa ayadana si sahlan yaan waliba horay ayadoo baarlamaanku uusan dhamaysan doodiisa uga sii jawaabaya iguma jirto wax Soomaaliya dhibahaya sina inaan qabto waa ogahay in arrintani marin darro tahay waa ogahay waxaan taariikhda ka dhicin inay tahay ma dacweyno caalamka uma sheegino inay Soomaaliya dhigto ma rabo wax alla waxay soo saaraan waa ku qancahaya waliba waa ku dhiifi gelinayaa anoo maqan haddii ay iga soo go'aan gaareen ma dhahayo saasaad yeesheen inta u tago yaa si sharaf leh hortooda uga qiran doona hadday go'aan kasta oo ay soo saaraan taasna labadiiba arrimoodba halkaas ayaan uga jawaabaya intaas maaha waxa aan ku dulqaatay waa waxyaabo badan muddadii koobnayd khilaafku waa dhib badan yahay waxaan ogaaday Soomaaliya waxyaabaha muddada dheer ku meelgaarka aan ugu jirtay dawladnimaduna nooga daahday xukuumad jirta oo wax qaban u leeysan jiray waa waayo aragnimada aan helay laakiin khilaafku wuxuu ahaa waxa ugu badan oo dilahay in xukuumadahaasi ay meelihii laga sugayay ay gaaraan waxaan ka arkay labadii wiil ilaa saddexdii wiil oo ugu dambeysay inta Soomaaliyada maanta ka go'day baan arkay waxaan ku soo dulqaatay ma aha hadda waxa weeye inaan Soomaaliya kaga hagoogto interventionkii hal dhexdhexaadiyo odayaasha inaan kaga hagoogto crisis inaan ku abuuro baarlamaanka ma aqbali doontaa go'aankiisa iyo in kale inaanan eedaynin ama dhibaato kale aanan keenin maaha waxyaabo badan baan runtii kaga soo hagoogto Soomaaliya anna ku faraxsana khilaafku markuu bilowday walwal baa dadka ku dhaca institutionska dadka jooga way kala tagaan gaar ahaan ama way kala danaystaan
gaar ahaan waxaan rabaa meel kale uma soo qaadanayo tusaale xukuumaddaydan rabaa waxay noqotay in wasiiradii ay walwalaan markii ay noqotay in la yidhi khilaaf baa halkaas jira waxaad arkaysaa mid kugu dhowaanahaya iyo mid kaa durkahaya waa dhaqanka waxaa la yidhi marka khilaaf dhaco aad bayna dhib ugu badan tahay runtii waa yeeli karay si sahlan kuwa iga durkahayoo dhahahaya dhaqan baa jiri jire saas yeel ama sababo badan awgeed durkahaya waa yeeli karay inaan fire gareeyo saacadan la joogana kulligood waa wada xubsayn karaa kii alla kii aan damco shaqada waa ka fariisin karaa laakiin institutionska Soomaaliya saas dan uma aha haddaysan dan u ahayna mar rabo crisis cusub inaan Soomaaliya geliyo wasiirkani waa walwalay oo waa ka warwareegay marka ka aarso maya wasiirkani waa wasiirkaygi institutions baan ka tirsannahay hadduu walwalay asaga maaha walwalku waa khilaafka kore marka hadduu yiri ma halkaad aadaa ma halkaad kii igu soo cararayna ma gulmayn ilaahay hortiisa marka la fiiriyo kii iga cararay oo walwalay oo shaqo kala qabsadayna ma ciqaabin maxaa yeelay ma rabo institutionkan jilicsan inaan maaragtay uga daro maantay arrintii oo laga doodahayo golahiyo CDC aysan dhibi jirinin rajadii Soomaaliya oo aanan taabanin laakiinse aan wax ku darnay oo arrinta inaanu u gudbino si gacmo Soomaaliyeed oo institutionska Soomaaliya in lagu xalilo waxa la wixii ka soo baxana la qabto yaanu dariiqeeda hayna waana si ballan qaadaynaa inaan ku hagoogno inaan la faragelin maaha wixii ka soo baxana waa aqbalaynaa geli ahaan waa hawl iyo qalbi aan u leenahay Soomaaliya waana si wari doonaa waa ka sii gudbayaa arrintaas waxaan rabaa inaan si kooban marka uga hadlo su'aalihii loo baahnaa waa ka jawaabay waa cadeeyay in asalka khilaafkan soo ku yimid waa cadeeyay sidoo ku soo gaaray mooshinka waa cadeeyay khaladkii kale oo aan tirsaday laakiin aan ku saburay waa cadeeyay wixii khilaafaadkii ahaa oo soo baxay inaanan qofna ku ciqaabin xukuumaddayadii intaagti tahay waa cadeeyay inaan go'aan xad ah ka sugayno baarlamaanka ana aqbali doono taa marka aan ka gudbo waxa aan rabaa inaan u gudbo khudbadii aan ka jeedin lahaa baarlamaanka oo sideedii ah waxna aanan ka dhigin waxna aanan ku darin inaan halka ka jeediyo oo haddii baarlamaankii la diiday inaan ka jeediyo sabab kasta ha keentee ummadda iyo caalamkaba inaan la qaybsado anoo ka sugahaya waa ogahay cod ima siinahayaan oo codku xaggu yaallaa laakiin garowsiyo iyo aqoonsi ka sugahaya maxaa yeelay dowladnimada aan maamulayno waxaa iskale dadka Soomaaliyeed meesha ugu badan oo wax la taagto ama wax la dhigtaa oo shaqada loo hayaa waa dadka Soomaaliyeed waxaan khudbadan ugu talagalay dhagahooda inay ku maqlaan bal eedayntii baarlamaanka waxaan qabo si kooban wax badan waa ogahay laakiin waxaan isiri lama qarin kare ummadda la qabso oo caqabadihii jiray qayb ka ahaayeen ayagana si kooban baan u taabanaya idinkoo raalli iga ah malaha waa dheereeyay aragtaydi kana si